kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaan naga daawanaysaan waa Saxaso Production daawada hadii ay tahay markii ugu horeysay oo soo booqatay channelka fadlan ka baqi inaad subscribe tiraahdo jambalka afroti share iyo like iyo comment iguna waa noo muhiim qodobada maanta kuwa hayno saaxiibayaal waxa ka mid noqon doona qarax miino oo ka dhacay caasimadda Galmudug ee Dusmareeb dagaal xoogan oo dhaxeeya ciidamada macuusleyda iyo kuwa Itoobiya madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani oo kulan la yeeshay safiirka Mareykanka ee u fadhiya dalka Soomaaliya qodobadaas wixii kale nagu soo kordhaya daawadayaal ku daawan doontaan intaan ku guda jirno warkeena daawad hadii ay tahay markii ugu horeysay ee channelkana soo booqatid fadlan ka baqilin inaad subscribe tiraahdo like tiraahdo comment-gana noo raacsiisid si aan kula socno had iyo jeer daawashadaaduna waa inoo muhiim kale isku soo noqdo wanaagsan daawadayaal wararka naga soo gaaraya caasimadda Galmudug Dusmareeb ayaa waxay sheegayaan qarax miino oo xoogan inuu ka dhacay caasimadda Galmudug Dusmareeb qaraxaas oo ahaa nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu ka dhacay goob lagu gado qaadka ama jaadka waxaana qasaare ka dhashay laba ruux oo halkaas ku dhaawacantay waxaana durbaba lagu cararay labadaas ruux isbitaalka guud ee caasimadda Galmudug Dusmareeb iyadoona haatan halkaas lagu dabiibayo waxaana isla markiiba goobta soo gaaray ciidamada ammaanka ee ku sugan caasimadda Galmudug Dusmareeb dagaal xoogan oo dhaxeeya ciidamada Itoobiya iyo kuwa macuusleyda ayaa waxa uu ka socdaa gobolka Hiiraan waxaana la sheegay in ciidamada Itoobiya qaarkood oo ka soo goostay ciidamada Itoobiya ay u soo galeen goob ay ku sugnaayeen ciidamada macuusleyda oo halkaasi ku sugnaa waxaana dagaalkan xoogan oo socda saacadihii u dambeeyay iyadoo la soo sheegayo labada dhan inuu qasaare xoogan soo kala gaaray haatan ma jirto wax ka hadlay dagaalkaasi xoogan oo u dhaxeeya ciidamada macuusleyda iyo waliba kuwa Itoobiya oo haatan dagaal culus oo halkaas ka socdo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa madaxtooyada Puntland ee Boosaaso maanta kulan kula yeelanaya safiirka dalka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya la sheegayaa in ay ka wada hadlayaan khilaafka xoogan ee u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo maalmihii u dambeysay khilaaf xoogan oo ka taagnaa dawladda federaalka iyo maamulka Galmudug iyadoo dhanka kale laga wada hadlayo sidii taxaan midaysan looga qaadi lahaa dalka iyadoo maalmihii u dambeysay ay soo shaabaxayeen khilaafyo xoogan oo u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba wasaaradda waxbarashada maamulka Puntland iyadoo maamulka Puntland iyo dawladda federaalka khilaafkooda uu yahay mid cirka isku shishareeraya guud ahaan waa naga intaas daawadayaal warkii aad kala socoteen Saxaso Production daawada hadii ay tahay markii ugu horeysay ee channelka soo booqatid fadlan ka baqi inaad subscribe tiraahdo like share comment iguna waa noo muhiim